dagaalka oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ku leeyihiin deegaan ku yaala duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ee deegaanka Barsanguni, waxaana halkaas ka dhacay dagaal in ka badan saacad socday. goobjoogayaal ayaa waxa ay ku warameen inay maqlayeen dhawaq rasaas isku adeegsanayeen labada dhinac, isla markaana uu jiro khasaare ka dhashay, waxaana wararka ay sheegayaan in dagaalkaasi uu ku dhaawacay mid ka mid ah askarta ciidamada Jubbaland ee goobta ku sugnaa. warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in markaasi dhinacyadu ay sidoo kale isku adeegsaneen hubka noocyadiisa kala duwan, khasaare xooggan uu dagaal ka dhashay. saraakiisha kala duwan ciidamada Jubbaland weli wax faahfaahin ah kama aysan bixin dagaalkaasi, waxaana ku soo aaday xilli dhawaan ciidamada nabadgelyada Jubbaland howlgal ee duleedka Kismaayo ka sameeyay ee sheegay inay ku soo qabteen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. deegaanka Barsanguni oo dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo ku yaala ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay weerar kala duwan, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ee deegaankaas ku sugan inta badan ay sameeyaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab.